ninkii gabadha qaba ayaa bilaabay inuu wajigiisa ka ilaaliyo imaamka maxaa yeelay kama uusan filayn in imaamku wax ka xadayo gurigiisa. soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan idin hayaa sheeko ku saabsan imaam hadda ka hor lagu tuhmay inuu tuug ahaa. waqtiyadii hore ka mid ah dal ka mid ah dalalka Afrika, tuulo ka mid ah ayaa waxaa ku yaalay masjid. sidaan ognahay masjid walba wuxuu leeyahay imaam. waxaa jiray imaam kaasoo masjidka tuulada imaam ka ahaa. dadka tuuladaas deganaa waxaa caado u ahayd ramadaanka markuu soo galo in xaafadba maalin uu u afuro imaamka 30 maalmood ee bisha Ramadaan. 30 maalmood wuxuu u kala afuri jiray 30 xaafadood oo ku yaalay tuulada. maalin maalmaha ka mid ah ayaa imaamkii waxa uu ku soo beegmay xaafad 2 qof isqabta oo lamaana ah. si fiican ayay u soo dhaweeyeen lamaanihii imaamku. sidoo kale imaamkii iyo ninkii gurigiiska lahaa waxay ku wada afureen hal qol. imaamkii markuu soo afuray ayuu soo baxay. gabadhii uu ninka qabay ayaa qolkii soo gashay, waxayna meesha ka weysay lacag badan oo ay meesha ku ogeyd. waxayna dhaar ku martay in imaamka mooye cid kale aan qaadan lacagtaas. ninkii gabadha qabay ayaa bilaabay inuu wajigiisa ka ilaaliyo imaamka maxaa yeelay kama uusan filayn in imaamku wax ka xadayo gurigiisa. hal sano ayuu sidaas ku socday oo ramadaankii kale ayaa la gaaray. sidii caadada ahaydba imaamku maalinba cid ayuu ku qoran yahay. qoftii dumarka ahayd ee xaaskii ayaa ku tiri ninkeedii, waan iska cafinaynaa imaamkan oo aan iska afurino maadaama uu yahay maskiin. wayna isku waafaqeen inay casuumaan mar kale. haddaba imaamku waxa uu yimid gurigii. sidii caadada ahaydba way afureen wayna sheekaysteen. imaamku ayaa dareemay in ninkan uu sidii hore ahayn oo ay wax ka qaldan yihiin. imaamkii oo sii bixi raba ayaa waxa uu weydiiyey dadkan maxaa jira. lamaanahan ayaa ku yidhi imaamkii, lacag ayaa naga maqan, lacagtaasna adigaa qaaday. intaas kadib imaamkii waa uu ooyey, ilmada wuu ceshan waayey. sababtoo imaamkan u oynayo way kaa yaabinaysaa runtii. imaamkii ayaa yidhi, waa runtiina lacagta aniga ayaa qaaday, laakiin waa idin xafiday waxaana geliyey kutub qur-aanka dhexdiisa. welina meeshii buu yaalaa kutubkii. imaamkii ayaa ku yidhi intaa kadib, aniga waxa ilmada iga keenaya wax kale ma ahan tuhunkaad igu tuhmaysaa inaan lacagta aan qaaday, ee waa inaadan hal sana aan kala furin kutub qur-aanka. oo haddii aad isku day lahaydeen inaad aayad qur-aan aad ka akhrisaan kutubka, waad ka arki lahaydeen lacagtiina. sidaa darteeda waxa uu kula dardaarmay inay kutub qur-aanka ay akhriyaan, maadaama 3 bari kadib qofkii akhrin waayo ay dembi weyn ay tahay. saaxiibayaal, waxuun haddaad naga faa'iideen muuqaalka noo laagareeya, sii sheergareeya, la wadaaga asxaabtiina. tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. nabaadiino.